munaasabad si qurux badan loo soo agaasimay laguna taageerayay Dictoraysa Maryan Cismaan Fagase oo ka mid ah musharaxiinta u taagan golaha baarlamaanka Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Leiden ee wadanka Holland. munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada amaanle ee ku nool wadanka Holland ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horeyna Maryan Farxad iyo Cismaan Baagish ayaa hadallo taageero iyo ducaa u diray musharaxada, halka Cabdullaahi Saalax iyo Injineer Siciid Shire si qoto dheer uga hadleen aqoonta kartida musharaxada, waxayna fariin u direen isimada beesha amaanle. isku soo wada duuboo dadkii meesha ka hadlay ayaa hambalyo u diray musharaxada. inaan taageero u fidino walaasheena Maryan Cismaan Fagase oo isku rashaxday xildhibaan gobolka Karkaar oo Puntland. Maryan horta waa gabar aqoon leh oo walaasheena ah oo in badan ka soo shaqeysa howlaha bani'aadamnimada iyo waxyaabo badan oo cilmi sare leh. waxaan u maleynaynaa inay rag badan inay dhaanto muugiye kama liidato. gabdhaha Soomaalida sanadkan ma sha Allah rag badan bay ka fiicnaadeen, meel walba adduunka way ka muuqdeen. waxaan rajaynayaa gabadha Dictoraysa Maryan Fagase magaca uu igu dheeryahay markaan soo gaabiyay inay noqoto gabadha cadaalad, sinaan iyo horumar intaba u hogaamin lahayd gabdhaha Soomaaliyeed baan rajaynaynaa. waayo waxaa la kala ogaaday nimanka iyo naagaha waxay kala yihiin markay dagaaladii ahliga uu dhacay hooyadii gabar dhashay ma aysan dhimanin. taageeradaas oo ah mid haweeneed, mid maaragtay Soomaaliyeed, mid maaragtay aan ogahay inay Maryan Cismaan ay wax badan ku soo zaa'idin karto guud ahaan iyo goob ahaan kulli Soomaaliya iyo Puntland iyo meel kasta. waxaan u rajaynayaa insha Allah guul. waxaan halkaan ay fariin ugu dirayaa ugaaskeena iyo sultaankeena iyo isimadeena inay maaragtay iyagana ay ka qaataan gacan weyn. halkaan waxaan ka taageerinaa walaasheen qaaliga ah Maryan Cismaan Fagase aan aad iyo aad ugu taageerino kulligeen inta meesha ugu timid. dadku dhan way wada og yihiin gabadhu inay tahay gabar cilmi leh, ma sha Allah. waan ku taageersanaa aad iyo aad. waxa weeyaan gabadha tani waa gabar mutacallimad ah, gabar wax baratay, gabar wadanka uu soo halgantay, wax badan uu soo halgantay intii muddo aan u halgamaysay. marka waxaan rabnaa kaalintii haweenka ee Puntland in ay ka qayb qaadasho oo qaybteeda la siiyo. waxaan ku socotaa odayaasha Puntland, madaxda dhammaan iyo waxgaradka oo dhan. gabadha taageerideeda ayaanu isugu nimi Maryan Cismaan. waxaanuna doonaynaa gabadhaas in aan sidaan anagu codka iyaga u siinay loo siiyo. waxa weeye gabdhaha Soomaaliyeed oo waliba xilliga maanta jooga waxa weeye kaalinkoodii waa ay ka soo baxeen. haddana waxa la rabaa gabadhii isa sharaxaysa ama haddii dalka iyo dadka inay wax u qabato in la taageero. taageerida aanu taageerayno musharaxada xildhibaanada Maryan Cismaan Fagase. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay u fududeeyo. haddaan Fagase ahaan aan ka soo qaato waxa uu ahaa dadkii Soomaaliya dhaqdhaqaaqa iyo xorriyadda iyo ka soo qayb qaatay. waa dareemaysaa ilbaxnimada iyo xadaarada uu ku lahaa. meel kasta ayay ku qoran tahay, meel kasta ayaana loo ogyahay. waxayna Maryan ka soo jeedaa familigaas bay ka soo jeedaa. iyadana waa qof mutacallimada wax baratay, muddo badan United Nations u shaqeynaysay, wax badan ku soo kordhisay dalka iyo dadka. waxqabadkeedana la arkay.